kulanti wacan daawade halkan waa janalkeena Hoggaan Media oo horey aad uga barateen barnaamijka falanqaynta caalamka waa 25 May sanada 2026 haddaba qaybtan waxaan ku eegi doonaa maxay tahay kulanka dhexmaray hogaamiyaasha dalalka Carbeed iyo kuwa kale oo muslim ah iyo madaxweyne Donald Trump maxay ka wada hadleen intii lagu guda jiray shir telefoon oo dhacay Sabtidii iyo madaxweyne Donald Trump oo hogaamiyaasha dalalka Carbeed iyo kuwa kale oo muslim ah oo ka dalbaday dalab la yaab leh isla markaana fajac iyo ama ka kuriday hogaamiyaasha muslimiinta ay ka qayb galay kulanka telefoonka maxay ahaayeen siraha ka dambeeya kulankaas iyo arrimaha dhabta ah ee la isla soo hadal qaaday waxyaabihii daha gadaashiisa ka dhacay maxay dhinacyadu ay sheegeen iyo arrimo kale oo xasaasi ah ayaan idinkaga haynaa dhinaca kale Iran waxay sheegatay in wadahadallada siyaasadeed ee socday ay si weyn diiradda ugu saareen sidii loo soo afjari lahaa waxa ay ku tilmaameen dagaalka gardarada ay Mareykanka iyo Israa'iil ay wadaan haddaba maxay dhab ahaantii Iran ay kaga jawaabtay hadallada Mareykanka ee sheegaya in horumar laga sameeyo wadaxaajoodiyada muxuu ahaa isbedelada iyo wararka soo baxaya maalmihii la soo dhaafay ee ay ka dhasheen toddobaadyo badan oo wadahadallo ah lagu waday dhexdhexaadin oo Pakistan sameeyay geesta kale Iran iyo Mareykanka waxay hoos u dhigeen rajadii laga qabay in si degdeg ah loo gaaro horumar weyn oo lagu soo afjaro dagaalka 3 bilood ee socday ee u dhaxeeya labada dhinac muxuu ahaa fursadda Mareykanka oo ku sheegay in uu siin doono diblomaasiyadda fursad kasta oo ay ku guuleysan karto ka hor inta aan loo gudbinin ikhtiyaaro kale guud ahaan qodobadaas ayaan mid isku dul istaagi doonaa intaan ku guda jirno barnaamijka falanqaynta caalamka balse intaan u guda galin daawade waxaan ka codsanayaa muuqaalka like noo saar la wadaag asxaabtaada aragtidaada qaybta comments-ka noogu reeb magacaygu waa Hashim Aadam ku soo dhawaw barnaamijka falanqaynta caalamka mahadsanid waayahay haddii aan ku bilowno marka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu hogaamiyaasha dalalka Carbeed iyo kuwa kale oo muslima u sheegay intii lagu guda jiray shir telefoon oo dhacay Sabtidii in haddii lagu guuleysto heshiis lagu soo afjarayo dagaalka Iran oo doonayo in dalalkoodu ay heshiis nabadeed la saxiixdaan Israa'iil sidaas marka waxaa xaqiijiyay laba sarkaal oo Mareykan ah oo si toos ah ula socday arrinkani haddaba marka maxay tahay sababta arrintan ay muhiimka u tahay hadalka Donald Trump ee ku saabsan Israa'iil iyo in dalal cusub lagu daro heshiisyada Abraham wuxuuna muujinayaa tallaabada weyn ee xigta ee uu doonayo inuu ka hirgeliyo bariga dhexe marka dagaalka uu dhamaado Trump marka wuxuu si gaar ah diiradda u saaray baa leeyahay heshiis taariikhi ah oo dhexmara Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil hase yeeshee marka xaaladda siyaasadeed ee hadda ka jirta gobolka iyo doorashada Israa'iil ee soo socota ayaa ka dhigaysa in heshiis degdeg ah la gaaro mid aad u adag haddaba sidee ayay wax u dhaceen Sabtidii Trump wuxuu telefoon kula hadlay hogaamiyaasha Sacuudiga Imaaraadka Carabta Qatar Pakistan Turkiga Masar Urdun iyo Bahrain si ay uga wada hadlaan baa la yiri heshiiska la filayo ee Iran lala galayo haddaba marka qaar ka mid ah hogaamiyaasha oo ku jiro madaxweynaha Imaaraadka Mohammed bin Zayed oo aragti adag ka qabay dagaalka Iran ayaa sheegay in ay taageersan yihiin heshiiskaas mid ka mid ah marka saraakiisha Mareykanka wuxuu yiri dhamaantood waxay yiraahdeen waan kula jirnaa heshiiskan haddii uu shaqayn waayana sidoo kale waan kula jiri doonaa waxyaabihii marka daaha gadaashiisa ka dhacay saraakiil Mareykan ah oo xog ogaal u ahaa wadahadalka ayaa sheegay in Trump uu hogaamiyaasha u sheegay in uu xigi doono ra'iisul wasaaraha gumeysiga Benjamin Netanyahu isagoo marka carabka ku adkeeyay in uu rajaynayo in mustaqbalka dhow hogaamiyaasha Israa'iil uu qayb ka noqdo isla wadahadalladan haddaba marka laba sarkaal oo Mareykan ah waxay sheegeen in Trump uu madaxda u sheegay in marka dagaalka Iran uu dhamaado uu filayo in dhammaan dalalka aan weli ku jirin heshiisyada Abraham ama aan heshiis nabadeed la lahayn Israa'iil ay ku biiraan heshiiskaas oo xiriir rasmi ah la yeeshaan dawladaha Yurub dawladda Yahuuda waa sida uu sheegay haddaba marka hogaamiyaashan gaar ahaan kuwa Sacuudiga Qatar iyo Pakistan oo aan xiriir diblomaasiyad rasmi ah la lahayn Israa'iil ayaa la yaabay baa la leeyahay codsiga Donald Trump mid ka mid ah marka saraakiisha Mareykanka wuxuu yiri khadka telefoonka aamusnaan baa gashay dabadeed Trump ayaa kaftamay oo yiri weli khadka miyaad ku jirtaan haddaba marka Trump wuxuu markaasi madaxda u sheegay in ergeygiisa Jared Kushner iyo Steve Witkoff ay toddobaadyada soo socda ay arrinkani dabagali doonaan maxay dhinacyadu sheegeen marka Trump ayaa axadii qoraal uu ku daawacay bartiisa Truth Social ku yiri waxaan jeclaan lahaa in aan u mahadceliyo dhammaan dalalka bariga dhexe taageeradooda iyo wada shaqayntooda taas oo sii xoogaysan doonto marka ay ku biiraan quruumaha ku jira heshiisyada taariikhiga ah ee Abraham Trump wuxuu xitaa soo hadal qaaday baa la leeyahay fikradda ah in Iran ay maalin ku biirto heshiisyada Abraham taas marka waxay ka dhigan tahay in Tehran ay aqoonsato Israa'iil arrin Iran ay 10 sano ka hor diiday dawladda hadda ka jirta Iran waxay Israa'iil u aragtaa marka
cadow waxayna si cad uga go'an tahay burburinteeda. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana soo horjeeda heshiiska Iran lala galo isla markaana door weyn ku leh balaarinta heshiisyada Abraham ayaa axadii qoraal uu ku daabacay X ku sheegay inuu taageersan yahay codsiga Trump ee loo jeediyay dalalka Carabta iyo Muslimiinta. Haddaba marka wuxuu yiri haddii ay run noqoto in wada hadaladan lagu soo afjarayo colaadda Iran ayna sababaan in xulafadeen Carabeed iyo Muslimka ay ku biiraan heshiisyada Abraham. Heshiiskan marka wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah kuwa ugu saameynta badnaa taariikhda Bariga Dhexe ayuu yiri. Graham marka wuxuu ugu baaqay Sacuudiga iyo dalalka kale in ay aqbalaan codsiga Donald Trump. Wuxuu yiri haddii aad diidaan jidkan uu madaxweyne Donald Trump uu soo jeediyay waxay dhaawac weyn u geysan doontaa xiriirka mustaqbalka waxaana heshiiskan nabdeen loo arki doonaa mid aan la aqbali karin. Sidoo kale taariikhdu waxay u diiwaan gelin doontaa qalad weyn oo istiraatiiji ah. hase yeeshee dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa horey u muujiyay baa la leeyahay inuu diyaar u yahay caadiyeynta xiriirka Israa'iil balse sanadkii la soo dhaafay ayuu arrinkani ka yara qabowday. Trump marka ayaa bishii November ee sanadkii hore kulan ka dhacay aqalka Ovalka uu uga codsaday bin Salman inuu ku biiro heshiisyada Abraham. hase yeeshee marka dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa arrinkaasi ka hor yimid wuxuuna kulanka galay jawi kacsan. dagaalka Iran iyo khilaafka Sacuudiga kala dhaxeeya Imaaraadka ayaa boqortooyada ku riixaya baa la leeyahay in mowqifka adag oo shaki ku dheehan uu yahay ay ka qaadato maamulka fog ee Israa'iil. Saraakiisha Sacuudiga ayaa weli ku adkaysanaya in Israa'iil ay si rasmi ah u aqbasho waddo cad oo waqtiyeysan oo horseedaya dowlad Falastiiniya, taas oo ay shardi uga dhigeen baa la leeyahay in xiriir caadi ah la yeeshaan Israa'iil. Maamulka Israa'iil waa diidan yahay arrinkaasi. Saraakiisha Israa'iil iyo Mareykanka waxay rumaysan yihiin baa la leeyahay in Riyaad aysan wax tallaabo qaadi doonin ka hor doorashada Israa'iil ee la qorsheeyay bisha September iyo inta aan la arkin dowladda cusub ee xilka qaban doonto. waayahay qodobkaas halkaas ayaan ku dhaafaynaa. haddii aan eegno geesta kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran wuxuu sheegay in wada hadallada siyaasadeed ee socday ay si weyn diiradda u saarayaan sidii loo soo afjari lahaa. waxa uu ku tilmaamay dagaalka gardarada ah ee Mareykanka iyo Israa'iil ay wadaan. haddaba marka isagoo carabka ku adkeeyay in aan weli la cayimin in waqti rasmi ah oo lagu soo gabagabeynayo heshiis ama is-afgarad lala gaaro Mareykanka. isagoo ka jawaabaya hadallada Mareykanka ee sheegay in horumar laga sameeyay wada xajoojyada, Ismaaciil Baaqiya wuxuu shir jaraa'id oo ku qabtay Tehran ku sheegay marka in isbedelada iyo wararka soo baxaya maalmihii la soo dhaafay ay ka dhasheen toddobaadyo badan oo wada hadallo ah oo lagu waday dhexdhexaadin oo Pakistan sameeyay. marka wuxuu sheegay in ay sax tahay in ay qayb weyn oo ka mid ah qodobadii laga wada hadlay la isku afgartay balse cidina aysan hadda sheegi karin buu yiri in heshiis saxiix ah uu dhow yahay. wuxuuna marka intaa ku daray in habdhaqanka siyaasadeed ee Mareykanka uu noqday mid aan degnayn oo marba dhinac u leexanaya. Baaqiya marka wuxuu sheegay in hadallo isburinaya oo Mareykanka soo saaro saacado gudahood ay adkeynayso geedi socod kasta oo wada xaajood. isagoo marka ka hadlaya doorka uu ku tilmaamay mid wax burburinaya ee maamulka Sahyuuniyadda iyo jahwareerka ka jira go'aan qaadashada Mareykanka. Baaqiya marka wuxuu yiri shaki kuma jiro in nidaamka go'aan qaadashada ee Washington uu yahay mid aan nidaamsanayn. wuxuu tilmaamay marka mawjado iscasilaado ah oo mucaaradka ka jira Kongareeska Mareykanka, cadaadiska ra'yiga dadweynaha iyo khilaafaadka gudaha ee siyaasadda Mareykanka, isagoo sheegay in xaaladaasi ay furtay fursad ay saameyn ku yeeshaan dhinacyo gaar ah oo ku jiro maamulka Sahyuuniyadda. markii wax laga weydiiyay marka wararka sheegaya in jadwal loo dejiyay wada hadallada, Baaqiya wuxuu sheegay inaanu jirin waqti cayiman oo lagu dhameystiro is-afgaradka, wuxuuna adkeeyay in Iran ay ka go'an tahay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku gaarto natiijo ilaalinaysa xuquuqda shacabka Iran. isagoo xusay marka in waxa ugu muhiimsan ay tahay Tehran ilaalinta danaha qaranka isla markaana wixii natiijo oo rasmi ah la shaacin doono marka la gaaro buu yiri. marka wuxuu sidoo kale tilmaamay heshiis qoraal ah oo 14 qodob oo diiradda lagu saaraya joojinta dagaalka, arrimaha la xiriira marinbiyoodka Hormuz iyo soo afjaridda waxa ugu yeeray burcadbadeednimada Mareykanka ee ka dhanka Iran. Baaqiya marka wuxuu sheegay in marxaladaha hore ay laga maarmaanka tahay in la joojiyo tallaabooyinka Mareykanka uu ku fulinayo cunaqabateynta iyo go'doominta, halka Iran ay iyadana qaadan doonto tallaabooyin lagu xoojinayo marin ammaan ah oo mara marinka Hormuz. afhayeenka marka wuxuu cadeeyay in habka loo fulinayo arrimahaas oo uu ku jiro mas'uuliyadda Iran maadaama ay tahay dowlad xeebeed. markii la weydiiyay wada hadallada lagu wado qorshahan 60 maalmood ee Baaqiya wuxuu ku sheegay in muddadaasi lagu falanqeyn doono faahfaahinta qaar ee heshiisyada qoraalka iyo arrimo kale oo la xiriira, isagoo xusay in mid ka mid ah qodobadaasi si dabiici ah ula xiriiro arrimaha nukliyeerka buu yiri. wuxuuna si cad u sheegay marka in marxaladda Iran aysan weli ka wada hadleen
faahfaahinta barnaamijkada nuclearka wuxuuna mar kale ku celiyay in heshiiska qoraalka 14 qodob uu si gaar ah ugu wajahan yahay soo afjarida dagaalka. Hagaag haddii aan meeshaas ku ekayno qodobkaas aan fiirino qodobkeena ugu dambeeya oo ah Iiraan iyo Mareykanka waxay hoos u dhigeen baa leeyahay rajadii laga qabay in si degdeg ah loo gaaro horumar weyn oo lagu soo afjaro dagaalka 3 bilood ee socday ee u dhaxeeya labada dhinac. Arrinkan ayaa yimid iyadoo diblomaasiga ugu sareeya ee Mareykanka uu sheegay in Washington ay heli doonto heshiis wanaagsan ama arrinkan ay ula tacaali doonto si kale. Xogayaha umuuraha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa wariyaasha u sheegay baa leeyahay magaalada New York Delhi in Mareykanku uu siin doono diblomaasiyadda fursad kasta oo ay ku guuleysan karto ka hor inta aan loo gudbinin ikhtiyaaro kale. Hadalkaas marka waxaa yimid baa leeyahay markii madaxweyne Donald Trump uu axadii sheegay in ergeydiisii ku amray inaysan degdeg heshiis ah lala gaarin Iiraan. Rubio markuu wuxuu sheegay inuu jiro qorshe aad u adag oo miiska saaran kaas oo la xiriira awoodda Iiraan ay u leedahay inay dib u furto maranbiyoodka Hormuz isla markaana ay gasho wada xaajoodyo dhab ah muhiim ah oo muddo cayiman ku eg kaas oo ku saabsan arrimaha nuclearka. Trump wuxuu sare u qaaday rajadii heshiis dhow oo markii uu sheegay in Washington iyo Tehran ay si weyn uga wada xaajoodeen heshiis hordhaca oo lagu gaari karo nabad dib loogu furo maranbiyoodka Hormuz. Haddii aad halkan la soo gaartay daawadaheena sharafta leh waan kaaga mahadcelinaynaa la socoshada iyo daawashada muuqaalka. Fadlan like noo saar muuqaalka oo la wadaag asxaabtaada aragtidaada qaybta hoose ee faallooyinka noogu reeb. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.